Asalaamu calaykum walaalahayga soo dhawaada adduunka meel kasta aad ka joogtaan waa walaashiin oo video cusub idiin soo gudbinaysa maanta. Videogan wuxuu ku saabsan yahay adeeg yar aan ka soo gatay dukaanka Astaha. Marka waxaan jeclaysnaa idin share gareeyo insha Allah videosha soo badin doonaa maalmahan waa idinka caajisay raali ka noqda. Marka insha Allah waxyaabo kala badan idiin soo gudbina Ilaahay raali ka noqdo. Marka videogan aad gudagaleena waxa waaye meesha wax saaran ujeedaan cheese, spinach iyo rooti iyo ukun iyo looska shiidan. Marka maxaa ku dhahay iyo boorash ama shaariis u taqaanid iyo maxaa ku dhahay cuntada beebida u gaday mashaariir u gaday maxaa ku dhahay beebida isticmaalo on siiyo iyo maxaa ku dhahay iyo waxyaabo kale casriyaar ah iyo qudaar yar oo maxaa ku dhahay sida baradho, sweet potato, bataat macaan iyo basal iyo carrot iyo wax yar oo casriye ah. Biscuitka chocolate-ka waxa ku jira liin appelsiin ah iyo chocolate yar oo ka hooseeso. Marka chocolate-kan waxa ciyaalka aad u jecel yihiin maasha Allah. Marka qofka ciyaaleysta wuu yaqaanaa already shaas rajeynaya. Marka rootiga ani waxa ku jecel nooca miraha leh hummus waa hummus aad u fiican tahay haddii aad jeceshahay isticmaal noocan aad u jecelahay basbaas yar ay leedahay. Marka kana waxa waaye biscuit yar oo casriye oo kaleeta ah maxaan ku dhahaa yogurt nooca bariiska ku jiro ice cream ku iga dhalaalay laakiin waxa ma ahan muhiimadu inaan video idiin soo gudbiyo insha Allah. iyo hummus mid ka basbaas ku jira aad u jeclahay dhowr nooc jirta laakiin tan aan jecel markaa dukaanka taga soo qaata. Cheese-ka waa mozzarella cheese iyo maxaa ku dhahaa spinach ujeedaan iyo caano. Marka insha Allah anoo sameynaa idiin soo gelin doonaa spinach-ka iyo cheese-ka markii la isku daro caadi ma ahan macaan waaye. Rootiga noocan aan u jeclaa wuxuu leeyahay seedis. Marka video intaas oo ka egyahay waxaa ku xigi doono kan oo H&M alaabta aan ka dalbaday ah. waa alaab yar oo carruurta uga dalbay sida dhar yar fanaanad yar iyo surwaal yar. Marka oo xilligan kala xiran karo maadaama winterka laga sii baxayo. Marka xilliga spring la galay qabow yar jiro maxaa ku dhahay summer ma ahan. Marka fanaanadana ugu horeyso aad u qurux badan tahay waxaan rajeynaa wiilkayga inuu ka heli doono. Kalarkan maasha Allah qurux badan yahay oo kalar aad caadi u ahayn waan xitaa ku haystaa kalarkan maasha Allah. Marka waxaan rajeynaa inay maxaa ku dhahay la ekaa doonto uu ka heli doono insha Allah. Haddii cunuga ka heli waa xitaa waa celin kartaa warqada la socoto. Marka ku celin kartaa ama haddii kugu yaraato ama aad dooqaagu noqon wayn dharka. Surwaal ku xigo gabadheeda u gada surwaalkan. Marka waxaa la xiran karaa summerka iyo xilligan spring-ka lagu jiro oo maxaa ku dhahay qabow yar jiro marka aad u fiican xilligan oo kale xirto. Marka xarig yar uu wataa ujeedaan adaa waa dheerayn karaa waa la gaabin karaa haddii dhexda uu macnaha ka yar yahay macnaha furaysa waa adiga size-ka macnaha xukumi karo. Marka aad u qurux badan yahay kalar ahaan maasha Allah kalarka aan jeclahay. Fanaanadan waxaa la socota surwaal yar wiilkayga yar u gaday maasha Allah. kalar ahaan aad u qurux badan tahay. Marka waxa ku xigo surwaal yar oo sports ah gabadheeda u gaday ama training haddii aad u taqaanid. Marka surwaal kale u yaal laakiin kalarka ahaana markaan arkay ila qurxanaado u dalbay. Fanaanada wiilkayga u gaday maasha Allah ayadana wuu tijaabiyay wuu xirtay maasha Allah wuu qurux badan dhaw macaan uu ka helay. Surwaalkan gabadheeda yar u gaday waa pink ama basalis u taqaanid. PlayStation fanaanad waaye waa nooc oo gacmo maxaa ku dhahay gaabka ah am t-shirt u taqaanid t-shirt laba xabo u dalbay labada wiil oo kala dalbay si kala maseerin. Marka aad u qurux badan yihiin maasha Allah. waxaa loogu talagalay summerka xilligan oo kale maaduro xilligan oo qaadan kara laakiin jaakada inuu soo korkiisa oo maxaa ku dhahay xilligan oo kale ah. Surwaalkan waa last one marka surwaalkan yariista u dalbay aad u qurux badan maasha Allah. Warqadihii waa kuwana waa rasiidka aan ku gaday iyo warqad aad ku celin kartid haddii aadan ka helin dharka markaas. aad idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.